The power of information, it's here with you. Garissa Times Tube channel brings you updated news as it happens. Whatever you just need like is just click the like button, then give us a subscription at the bell sign. Then from there, the story are gonna be flowing in as we update you day to day. In ka badan 50 arday ayaa ka qalin jabiyay madarasada agoomaha ee Najah Children Home kuwaasi oo soo dhameystay waxbarashadooda fasalka 12aad. Madarasadan oo ay gacanta ku hayso hay'adda Khadar Charity ayaa wax ka barata in ka badan 600 oo arday. Munaasabada qalin jabinta ayaa waxaa ka soo qayb galay MCA laga soo doorto xaafadda Iftiin ee magaalada Garissa, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Garissa iyo xildhibaano kale oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee Garissa. Dhamaadkii xalfadan ayaa waxaan wax ka weydiinay maamulaha madarasadan iyo xalfadii maanta ka dhacday madarasada. waxaa dhigtaan hataa ciyaalka maartay xaafadda way dhigtaan wax khaas ah kali ku ama ilmaha madrasa boardingka waxa way kuwa oo agoomaha laga sii cuntadooda jiifkooda yani wax oo dhan mutakaamil ay ka helayeen marta daaqilka marka khaarijkana way dhigtaan ilmaha khaarijkana way dhigtaan kuwa daaqilkana way dhigtaan sidaas oo qoto iskuulkana waa lamid primary waa public laakiin khaarijna way dhigtaan daaqilkana way dhigtaan ciyaal waxa ku jira madrasa ilaa 300 gaarayeen hadaysan ka badneen oo isku jiraan kuwa daaqilka iyo kuwa khaarijka ah. Dhanka kale qaar ka mid ah xildhibaanadii ka soo qayb galay xalfadda ayaa mahadnaq kadib tilmaamay qorshe dhawaan la soo saaray kaasoo ah madrasooyinka iyo dugsiyada oo la sheegay in lagu dari rabo iskuulada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maanta waxaan ka soo qayb galnay qalin jabintii madrasada Najah oo ay hawli xarun agoon ah oo aan aad ugu mahadcelinayna culimadii iyo dadkii soo qaban qaabiyay oo si wanaagsan soo qaban qaabiyeen. anoo madaxda maanta ka soo qayb galnay maxaan kala rabaa inaan halkan ka shaaciyo oo sheego in madrasadan ay ku jirto madrasooyinka badan ee county Garissa dawladda ay maalgelin doonto qorshe hawleedka dawladana ay ka mid tahay ay dawladda ku soo darto programka budget rasmi ah la siin doono oo sida loo maalgeliyo idaalada kale dawladda loo maalgelin doono education la dhaho asagana hadda maxaa jirta la dargelin hayo oo loogu talagalay in iskuulada iyo madrasada iyo dugsiyasha integrated laga dhigo sifaala ma artay macallimiintii akhrinayeen muxuu ahay madrasada payrollka dawladda countiga loo gelin karo caruurta ayagana ma artay mashquulayeen oo marna dugsi ku orad marna madrasa ku orad marna iskuul ku orad ayagana wixii dhan in la isku aruuriyo oo sidaas ma artay oo u fududaato waxa kale oo iyadana ma artay lagu socdaa hadda maxaa jirta ninka haduu madrasada uu soo dhameeyo ilaa jaamacad heer jaamici uu madrasa uu jaamacad ka soo baxo certificate-kiisa in aan la aqoonsaneyn oo wadanka aan laga aqoonsaneyn baa dhacdaa marka ayagana aqoonsi bay helayeen aqoonsigaas oo marka shaqo ay ku heli karaan meel walba ay u heli karaan haduu yahay maartay heer secondary haduu jaamacad yahay. The power of information, it's here with you. Garissa Times Tube channel brings you updated news as it happens. Whatever you just need like is just click the like button, then give us a subscription at the bell sign. Then from there, the story are gonna be flowing in as we update you day to day.